warar iminka soo gaaraya xarunta dhexe ee telefishinka Somali Cable ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ku dhawaad 8 qof ay ku dhinteen badda 8 kalena laga soo badbaadiyay kadib markii doon ay la socdeen dadkaasi ay ku degtay badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga. waxa kale oo la leeyahay dad kale oo iyaguna doonta saarna sida ay sheegtay hay'ad dalka Spain laga leeyahay. shilkani dhacay ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee sanadkan cusub ee 2018 dhaca iyadoo dariiqaasi badda aad loogu dhamaaday muddo dheer. ku dhawaad 34,000 oo qof ayaa ku dhamaatay amaba lagu waayay biyaha Talyaaniga iyo Liibiya u dhaxeeya ilaa iyo sanadkii 2000. ciidamada ilaalada xeebahana waxay sheegayaan in qalabka wax lagu ilaaliyo ee diyaaradaha ay kula socdeen doomaha ay saaran yihiin dadka la soo tahriibiyo. waxaana ilaa hadda soconaya baadigoobka loogu jiro dad badan oo adoontaasi saarna oo rajo laga qabo in dib loo helo. midowga Yurub war ay dhawaan soo saareen waxay ku sheegeen in dadka Yurub u haajiraya ay tira ahaan hoos u dhacday sanadkii tagay ee 2017. sanadkaasi tagay ee 2017kii 3,000 oo qof ayaa ku haligmay badda iyagoo isku dayaya in ay gaaraan qaaradda Yurub. hoos u dhacan ku yimid dadka Yurub u tahriibaya ayaa loo sababaynaya xuduudihii ay ka soo gudbi jireen tahriibayaashaasi oo si weyn loo adkeeyay. sidoo kale hoos u dhacani ayaa waxa qayb weyn ka qaatay heshiiskii dalka Turkiga lala galay ee ahaa in uu ka hortagayo dadka dalkiisa ka soo galaya qaaradda Yurub. Cabdulqaadir Umar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, Somali Cable TV.